بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inaan aragti kooban ka dhiibto dhacdooyinkii maaragtay doorashooyinkii saddexdii maalmood ugu dambeysay ka dhacday dalka Soomaaliya ee ku aadaneed doorashada guddoonka iyo ku-xigeenadoodii ama aqalka sare ama aqalka hoose noqdo runtii doorashadaasi dad badan haddii ahaan lahaayeen shacab tiro badan oo taageerayaal ay shacab guud iyo siyaasiyiin wax dooranaya iyo siyaasiyiin la dooranaya iyo siyaasiyiin mustaqbalka rabta in la doorato intiiba ay soo dhaweeyeen runtii arrintaasi horta midna waan qabaa in la soo dhaweeyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu xamdiyo midna runtii maaragtay mustaqbalka dheer runtii in soo dhaweeyo in arrintaasi la soo dhaweeyo in kale inay ku habboon tahay in la sheego marka 4 sano soo socota ayaan qabaa sababtoo ah waa waxyaabihii aan ka baranay maaragtay isbedeladii maaragtay ilaa iyo waagi Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo farmaajo mar walba waxa la doonayay maaragtay isbedel wax la yiraahdo isbedelkaasna wuxuu ku salaysnaa mid shakhsiyeed ay ku salaysnaa runtii ma u salaysneen ama policy ama agenda ay la yimaadeen maaragtay dadkii xilka u taagnaa ama ha noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose ama ha noqdaan golaha fulinta ugu sareeya madaxweynaha intaba maaragtay arrimo agenda ah ay la yimaadeen ama siyaasadeed maaragtay wadankan wax uga qabanayaan runtii laguma dooran waxa lagu doortay shakhsigan ayaa naga hor yimid intaas uu sano haystay marka aan iska bedelno marka kaana aniga runtii isbedel uma aqaan run ahaantii waxa aad iyo aad iga yaabiyay oo caadiyan u noqotay siyaasiyiinta maaragtay Soomaalida xilka doonayo intii maaragtay ay laga bilaabo 2000 waqtigan aan maanta aan ku jirno 2022 waxay caadeysteen runtii ayna ay maaragtay ay ku guul heleen in ay la yimaadaan war anigu magacayga waa hebel waxaan ahay mas'uul horay wax u soo qabtay waxaan rabaa in aan mas'uuliyadaasi wadanka ugu sareysaan rabaa inaan qabto ama madaxweynenimo ama mas'uuliyadaasi maaragtay golaha fulinta ra'iisul wasaare ayaan rabaa ama mas'uuliyadaasi golaha shacbiga guddoomiyaha rabaa ama mas'uuliyadaasi waxaan rabaa golihii saran rabaa ama waxaan rabaa mas'uuliyadaasi maamul goboleedkaasi inaan madaxweyne u noqdo intaasi waxaan ahayn oo ah magacayga hebel la yiraahdaa ama mas'uul horaan u ahaa waxaan rabaa jagadaas anigana haddaan imid waxaan ahayn war weligood ayagoo ka hadlay lama arkin war maxaad u taagan tahay war maxaad u taagan tahay maxay tahay waxa aad rabtid inaad ajendaha iyo policyga siyaasadeed iyo marka hindisaha siyaasadeed oo kaaga diyaarsan wadankan maxaad qalad u aragto oo aad rabtaa inaad bedesho maxaad rabtaa hindisaha siyaasadeed oo aad rabtay inaad ku saxdo mala ma leedahay aragti oo ku salaysan tan maanta dawladihii ka horeeyo aad rabtay inaad bedesho ama institutionka rabtid inaad bedeshid waxa ay ku qaldan yihiin ma leedahay aragti oo aad taqaanid oo aad shacabka aad u sheegto ma taqaana aragti sababta looga qaabka looga bixi karo mustaqbalka ma taqaana oo shacabka u soo bandhigtay saddexdaas shay malaha waxa kaliya aan uga baranay waxay tahay in ay soo istaagaan oo ay yiraahdaan hebela li yiraahdaa ama mas'uul horaan ahaa ama haddan rabaa mas'uuliyad waxaan u taaganahay jagada waxaan weligood lama imaanin wax la yiraahdo war qofkan waxa aad tahay horta dadku u sheeg waxaad u taagan tahayna dadku u sheeg annaga magacaaga iyo mas'uuliyad hore u soo qabatay waxba uguma tarayso wadankan in maaragtay oo saameyn kuma yeelanayso maaragtay ama ha noqoto mid abni ha noqoto ama mid maaragtay wada noolaansho ha noqoto ama mid shaqo ha noqoto ama mid cadaalad ha noqoto ama mid maaragtay oo maaragtay mustaqbal fiican ama rajo u soo bi karta ha noqoto
intaasiba maaragtay magacaaga iyo maaragtay mas-uuliyadda hore shalay u haysay waxba kama tarayaan marka waa inaad la timaadaan ajenda waa inaad la timaadaan waa inaad la timaadaan aragtidaasi oo aad ku sheegayso sababt jagadan aad rabto hadday tahay madaxweynenimo hadday ay tahay maamul goboleed inaad madaxweyne u noqoto hadday tahay guddoon baarlamaan hadday rabto inaad qabato haddaad rabto inaad qabato prime minister inaad rabto inaad qabato waa inaad la timaadaa aragti waxa aad qoladana aad rabtid inaad badashid aad ku sheegayso in aragtidoodu ay qaldan tahay aysan ahayn mid aad maaragtay oo aan dalka iyo dadkaba maaragtay mustaqbalkooda iyo nabadooda iyo horumarkoodaba aan faa'iido u lahayn oo aad ku caddayn karto isla markaana aragti aad la timaado oo aad ku bedelayso oo mustaqbalka ah oo aad ku hagaajinayso waxyaabahan ay maaragtay iyo bolosiyadan iyo ajandooyinkan iyo dhaqangelintan iyo aad maaragtay oo aad macnaha aad ku implement garaynayso inaad la timaado intiba ma laha waxaan rabaa marka in aan horta idin soo xusuusiyo mas-uuliyaddaasi aad doonanaysaan waxa laga rabo waxa ay tahay shaqadeeda runtii shaqadaasi waxaa laga yaabaa in aad badankiina aqoon sababta aan u leeyahay badankiina ma taqaaninna waxa macnaha aan dareemayaa aragtidaasna dad badan oo Soomaaliya ila qabaan waxay tahay sababta weligiin maada cadaynin mas-uuliyadda idin saaran ilaa mooye hebel la yiraahdaa mas-uuliyaddaasaan hore usoo qabtay iyo jagadaanaan rabaa ee haligu cabiro shaatigeed halii taro horta mas-uuliyaddan waxay tahay waxaa jiri jiray 31 sano ka hor waxaa jiri jiray waxa la yiraahdaa dal Soomaaliyeed 31 sano ka hor waxaa jiri jiray shacab la yiraahdo shacab Soomaaliyeed marka waxaa la rabaa mas-uuliyaddaada waxay tahay dalkaas 31 sano ka hor jiri jiray inaad soo celisid mas-uuliyaddaada waxay tahay shacabkaas 31 sano ka hor jiri jiray inaad soo celisid runtii processkan ama isku dayadan la rabo in lagu soo celiyo 31 sano dalkii Soomaaliyeed ee jiri jiray 31 sano shacabkii Soomaaliyeed ee jiri jiray wuxuu qaatay 22 sano ayuu soo socday 22 sano uu soo socday ilaa ay hadda ma aysan imaan xal lagu xaliyo oo labadaas lagu gaaro marka labaad sanadkan hadda lagu jiro waa 2022 weeye adigu waxaad doonanaysaa mas-uulka waxaad doonanaysaa mas-uuliyaddaasi oo ah madaxweynenimada qaarkiinna waxaad doonateen oo ilaahay idinku fududay mas-uuliyaddii labadii golo marka dalkaas oo Soomaaliya la yiraahdo qaarkiin ka mid ah mas-uuliyaddaas hore oo soo qabateen halka waad u keeni weydeen qaarkiin haddaad ku fadhidaan dalkii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed waad keeni weydeen haddana waxaad leeyihiin mar labaad hadna la siiyo fursad oo waan soo celin karnaa runtii aragtidii iyo ajandihii iyo dariiqii iyo dadaalkii aad u mar lahaydeen midnaba maada caddayn horta mas-uuliyadda idiin saaran waa taas waxaan ognahay runtii 22 sano intii la raadinay halkaasi oo la rabay in lagu soo celiyo dalkii iyo shacabkii Soomaaliyeed laba isbedel wax ayaa lagu dayay halkii mid wuxuu ahaa maadaama lagu kala tagay dagaalkuna uu ahaa mid maaragtay Soomaaliya maadaama ay ka kooban tahay maaragtay qabaa'ilo ay ka kooban tahay waxa la isku dayay halkii waxa loo arkay maaragtay in haddii qabaa'ilada loo suubiyo wax la yiraahdo power sharing loo suubiyo ama awood qaybsi qabiil ku saabsan in halkii oo maaragtay dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed lagu heli karo taasi ayaa maaragtay halkii ugu horeeyay maaragtay 2000 shirki carto lagu keenay oo ahayd 4.5 runtii muddo 4 sano kadib waxa la iska dhaadhiciyay haddana habkii awood qaybsiga halkii Soomaaliya waa lagu keeni waayay oo 4.5 ka ah oo awood qaybsiga qabiilka ah
waxaa lagu soo daray in la yiraahdo maaragtay nidaamkii dowladeed ilaa xorriyadda aan qaadanay oo ahayd in ay jirto hal dowladood oo dhexe oo leh awoodda in maaragtay awooddii la ballaariyo oo maaragtay la qaato nidaamka federalismka ayaa iyadana 2004 shirkii Embakasi ee Kenya 2004 asna halkii labaad oo isku dayo in lagu soo celiyo Soomaaliya maaragtay inuu noqoto dalkii la yaqiinay 31 sano ka hor shacabkii Soomaaliyeed ee la yaqiinay 31 sano ka hor ayadana waa tii maaragtay nidaamkan federal systemka lagu dhisay nidaamkii 4.5 kiiba runtii madaxdii ka dambeysay ugu horeeyay madaxweynihii hore Sheekh Shariif haddana u taagan xilka madaxweynenimada oo ku xigay madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh oo asagana oo madaxweynihii hore haddana maanta xilka u taagan iyo madaxweynaha hadda maanta jooga oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagana xilka u taagan runtii waxay ahaayeen saddexdii madaxweyne ee ka soo shaqeeyay maaragtay ku soo shaqeeyay labadaas isbedel oo lagu raadinayo xalka ahaa in lagu dalkii Soomaaliya lagu soo celin karo oo awood qaybsiga 4.5 ka ama nidaamkii federaalka ahaa maaragtay oo maamul goboleedyada lagu dhisay oo awood qaybsiga oo awoodii la daadejiyay oo hoos loo dhigay oo maaragtay awood qaybsigii iyo maaragtay loo kala qaybiyay ay wada leeyihiin dowladda dhexe iyo maaragtay xubnaha dowladda federaalka awoodahana loo kala qaybiyay maaragtay saddex qaybood mid maaragtay dowladda federaalka gooni u leedahay mid maaragtay maamul goboleedyada xubnaha ka ay leeyihiin iyo mid maaragtay ay wada leeyihiin maaragtay dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda federaalka oo ah maamul goboleedyada ay ka kooban yihiin runtii marka waxaan ka rabnaa maaragtay dadka hadda xilka u taagan shalayna aan ka rabnay inta xilka u soo istaagayeen waxay ahayd inay la yimaadaan agenda maadaama ay mas-uul ka noqonayaan ee hormood ka noqonayaan ee mas-uuliyaddaasi u qaadayaan inay soo ceeliyaan dalkii la dhihi jiray Soomaaliya oo 31 sano hore jiray dadkii Soomaaliyeed oo 31 sano hore jiray inay shaqadoodu tahay inay soo celiyaan maadaama laga rabay siday ku soo celinayaan iyo aragtida ay ku soo celinayaan ayagoo badankood fursad u soo helay maaragtay noomaysan sheegin waxay kaloo inoosan sheegin war nidaamyadii lagu soo kordhiyey oo ahayd 4.5 ka awoodda qaybsigay war xal miyuu u noqday in Soomaaliya ay dalkeeda iyo dadkeeda isku soo noqdaan nidaamkii dowladda federaalka ah oo systemkii federalismka lagu qaatay oo lagu dhisay shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir lagu dhisay asagana wuxuu soo shaqeynaya muddo 10 sano ah 10kaas sano wax ma laga bartayo oo ma aragtay nidaamkaasi ma yahay mid soo celin kara dalkii Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliya ma yahay intaba inuu man sheegin runtii maadaama ajendahaasi ay la imaan waayeen marka anagu waxaan ka rabnaa haddaan ka shacab ahaan anna waxaan ka rabnaa marka arrimahaasi oo maaragtay oo aan soo sheegay oo xalka lagu raadiyo iyo arrimo kale oo jiro oo soo kordhay 2006 soo kordhay in ay yimaadeen gurubyo kale ay yimaadeen oo maaragtay oo qaba mabda islaamiyan ah oo muslim mabda islaamiyan qaba ayagu laftirkooda maxaad ajenda ah ayaad macnaha aad maadaama awal ay arrintii ay ahayd awood qaybsigu ku salaysnaa qabiil 4.5 oo ku salaysnaa maadaama uu maaragtay markii dambe 2014 ku salaysnaa nidaamka federalismka ayagana maxaad ajenda aad ugu tala gasheen waxa kale oo timid dhibaato kale ah in dawlad iyo dal Soomaaliyeed iyo wadan sida loo helo waxa loo baahan yahay maaragtay ilaahi kabayaasha dhaqaalaha oo macnaha ee wadankaasi wadan ku noqon lahaa
shacabkaasi ay uga madax banaanaan lahaayeen dowlado shishe ay uga madax banaanaan ilaa hadda lagu masruufo sida ay u dhisan lahaayeen ama World Bank ha noqoto ama IMF ha noqoto kabayaasha dhaqaalaha inay mas'uul ka yihiin security inay mas'uul ka yihiin in 24,000 oo ciidan iyo inaan la ogeyn lagu keenay ciidankii bedeli lahaa ciidankaasi in la yiri hala dhiso hay'adihii nabadda sugilay Soomaaliya military booliiskii nabad sugidii asluubtii ciidankii baddi oo ayaga bedeli lahaa waxaan ognahay ciidankan hadda 17 sano ayuu nala joogaa dowladihii lacagta ku bixinayay ciidanka bedeli lahaa ilaa hadda maysan suurtagelin ciidamadii maaragtay way kala qaybsan yihiin ama siyaasiyiintiinu inay kala qaybiyeen ha ku kala qaybsanaan ama maaragtay wadamadii soo kala tababaray iyo amarka ay ka qaadanayeen ama ha ahaadaan kuwii maaragtay Puntland jooga ee Mareykanka tababaray caqabadaha dowladda kala kulantay ama kuwii Dubai soo tababareen ha ahaadaan ama kuwa hadda maaragtay jooga Jubaland joogo oo maaragtay ciidanka Kenyaatiga ah iyo ciidanka Etoobiyaanka meesha joogo oo maaragtay qaybsanaanta u keeneen oo midnimada la'aanta ay jirto ama ha ahaadaan kuwan maaragtay saddexda maamul goboleed iyo federaalka gobolka Banaadir joogo oo ama qaarna Turkiga ay tababareen oo Haramcad iyo kuwa duufaan la yiraahday ama ha ahaadaan kuwan oo Mareykanka tababaray oo danbiya ciidankii midmadeysno ciidankii lagu bedeli lahay ciidanka toobada adiga security-ga wadanku ma noqon kartid ciidan shisheeye oo 17 weligood kulma joogo dhaqaalana uma haysan dhaqaalihi habka lagu abuuray ciidankan weligood kuma joogaan wadanku kuma noqon karo marka ciidankaasi istiraatiijiyad 17 sano maaragtay ay kula joogaan maxaa ka baratay ciidankaasi sidee baad ku mideynaysaa ayadana idinka ma hayno marka waxaa loo baahan yahay marka gabagaba waxaa loo baahan yahay maadaama aan la imaanin policy iyo aragti aad la imaanin oo aad ku saxaysaan wadankan sidoo wadan ku noqon lahaa dal ku noqon lahaa shacabkana ay ku noqon lahayn shacab Soomaaliyeed ku noqon aad la imaanin waxaan idinka rabnaa marka policy-ga maaragtay oo dib u heshiisiinta bulshadeed oo constitution-ka ah oo lagu saleeyay maaragtay federalism-ka lagu saleeyay oo maamul goboleedyada lagu saleeyay awood qaysigan lagu saleeyay qabiilka oo 4.5 ka lagu saleeyay ajandahan oo dhaqaalaha ee lagu saleeyay maaragtay IMF World Bank maaragtay kabayaasha dhaqaalaha dib u heshiisiinta maaragtay oo ay security-ga waxaan lagu saleeyay oo runtii idinka aad lahayn oo aad u tagi doontaan waxaan idinkaga baahannahay marka war ajandahan wuxuu soo shaqeynayay ilaa laga bilaabo 2004 ayuu soo shaqeynayay hadda waxa lagu jiraa 2022 ayaa lagu jiraa qaarkiin fursado ayaad u soo hesheen mar labaad ayaad rabtaan qaarkiin haddaad ku fadhidaan mar labaad ayaad rabtaan qaarkiin mas'uuliyadda ayaad ka soo qabateen ugu sarreysa ama wasiirro iyo maamul goboleedyo iyo prime minister ka soo qabateen war mal ajandooyinkan hadda wadanka lagu hagaajinayo ma waxaad review inaad ku suubisaan dib u eegis oo aad u sheegtaan shacabkani iyo cidda idinku kaalmeynayso in aad si bareer aad ugu sheegtaan war ajandooyinkaasi intaas sano ayay jireen way shaqeyn waayeen way u shaqeyn waayeen haddii ay qaldan yihiin inaad dadku u sheegtaan haddii aysan munaasib ku ahayn dalkan iyo dadkanna waa in aad sheegtaan oo tiraan dalkan iyo dalkan munaasib kuma ahan isla markaana aad haysataan wixii aad ku bedeli lahaydeen maadaama aad la imaanin policy maadaama aad la imaanin aragti maadaama aad la imaanin xal dalkan iyo dadkan xalka lagu soo dayay 2004 ilaa 22 oo aad bari dhaxli doontaan asaga waa in aad macnaha aad gelisaan su'aashaasi oo muxuu u shaqeyn waayay ilaa 2004 ilaa 2020 hadday noqon lahayd dastuurka haddii ay noqon lahayd nidaamka haddii ay noqon lahayd dib u heshiisiinta haddii ay noqon lahayd inaan ka madax bannaanaano haddii noqon lahayd nabadgelyada inaan ka madax bannaanaano haddii ay noqon lahayd dhaqaalaha inaan ka madax bannaano haddii ay noqon lahayd dowlad inaan noqonno
وواحد كامل هو ودولة لغة المام كل ضل يشعب سومالي لغة المام كرنو وإن أتجلسان سؤال إسلام مركزنا سؤال جديد هذا ما هني وإن أدتك أشكتان international community قاس أشكتان أترى هذا النوم شقينا إسلام مركزنا وحي لغة بدليل لها التي ماذا سداسي أيها وحلقون نقون كرا صدن يكون سنة كهر لغة رادي أو معناها أو جريد دل سوماليات هي شعب سومالي ساس أيها لغة معناها ساس لغة الأجنداسي بوليسي قاسين على التي ماذا معها إن أتكسو أردان أو آت ما ركتي آت معناها آت جاكادا قابتان أو ما ركتي النظام كان هذا اللغو شقاينايا أو أتقاركين فرصة وسوسنسان سو شاقي أو أتكور فريستان أو معناها أتكو شقايسان كا اسبدل لمير هذا اسبدل وحالي هذا أقوم بعض وليدهين قاركين فرصة بعض هالشيء كان دونتين وعلى قرب الشري إنه أقامته يقول لي هو راديو وروح أنا فولا مسؤولية ده سايفوش ده كان إن رادي شعب كان رادي سكون رادي وا أجندة يا ما أنت هو يا لو ودن كهاد وكوش قينا أجندة ما أنت وكوش قينا يو ما هي مركمت وما ركتي أو حل كينا أو solution كوا ويا أو نقول دون هدين نقول له هيد مت شعب هدين نقول له مت institution هدين نقول له هيد بوشيسين هدين أي نقول له هيد مت ما ركتين military هدين نقول له هيد إليه دقالها كبدا horta su'aalahaas inaad isweydiisaan marka hore dadku usoo bandhigtaan ay ahayd hadda maadaama aysan dhicin macnaha policyga yiilay ajandii Soomaaliya la rabay in dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliya lagu soo celiyo 2004 ilaa maanta 2020 oo idinka dhaxli doontaan haddii kii Ilaahay u sahlo waxa laga rabaa in uu runtii macnaha uu hoos u fiiriyo dib u fiiriyo qiimeeyo maaragtay haddii dadka uu anfacayana uu maaragtay uusan anfacaynin dadku u sheego waa lagu soo daalay oo yiraahdo waa lagu soo daalay ma shaqeynay sababtaas uu shaqeyn waay lana yimaado wixii uu ku bedeli lahaa laakiin waa ikana mas'uulkaas soo noqday magaciga hebel waay jagadaas isiye taas isbedel lama taas maaragtay isbedel lama yiraahdo shacabkan waxaan dhihi lahaa isbedel sheekh shariif ha isbedela tiraahdeed حسن شيء قايد كويمت هاد كفايدة ما يسبدلوا النقطة مايا حسن شيخ مركو يمت وعترى يسبدل إله ندافع فرما جاي يمت تا يسبدل من النقطة ونرشين وكسابسا من نقل يسبدل موسى نقل حد وحليلين فرماجي إله نجاك حي أصنو تجايا هذه إله قر يسبدل إنه إيمانه من موضع يسبدل كوحكو إيمانه أرمها سي يعني عن كسوهل isbedel ka aad rabtaan waa kaas isbedel ka ma aragtay wadan idinka dhigi kara shacabka Soomaali oo idinka madax banayn kara ma aragtay dawladda shisheeye haday noqon lahayd mid amni iyo security iyo haday noqon lahayd mid dhaqaale iyo haday noqon lahayd mid territory macnaha oo dhuleed iyo haday noqon lahayd sharaf iyo karaama isbedelkaas ayaad u baahan tihiin isbedelkaasina waa waxay ahayd inay la timaado madaxda u taagan maanta 2020ka xilka madaxweynenimo u taagnaa kuwa soo helay xilalkii maaragtay oo labada aqal haayo xukunka maanta xubnaha federaalka ee ka kooban tahay maamul goboleedyada kaas ayaa waxa la dhahaa isbedel hebel aad tagay hebel hala keen isbedel ma aha marka waxaan marka shacabka Soomaaliyeed hadda kadib aragtidiinu inay ku salaysnaato isbedelka u baahan tihiin inaad saas u taqaanaan isbedelkaad u baahnayno oo 22 sano waa inaad wax ka barataan isbedelka aad u baahan tihiin inaad wax ka barataan sidaasna inaad qofka rabo mas'uuliyadda aad ku qiimeysaan sidaas inaad u fahantaan wuxuu isbedelka leeyahay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalkii maxamed xuseen cabdo